shirkadda isgaadhsiinta Somtel ayaa magaalada Ceergabo maanta ka daafurtay isticmaalka adeega casriga ah ee 4G Plus munaasabadii adeegaasi shirkaddu ku daafuraysay oo ka qabsoontay Hotel Snack ee magaalada Ceergabo waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceergabo xildhibaano madax dhaqameed iyo macaamiisha shirkadaasi ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay faahfaahin ka bixiyay faa'iidada adeega 4G madaxa iibka iyo suuqgeynta ee Somtel Faisal Sahal Jaamac iyo sidoo kale gudoomiyaha Dahabshiil Group ee gobolka Snack Cabdiraxmaan Maxamed Ciise iyo waliba sidoo kale Fuad Aadan Weed oo ka مسؤولينta shirkadaasi adeega 4G Somtel waa adeeg kamid ah adeegyada Somtel ay siiso macaamiisheeda maantana aan ka furayno gobolka Snack gaar ahaan degmada Ceergabo wana adeeganu wuxuu kamid yahay adeegyada ay bixiso Somtel Ceergabo iyo dhammaan gobolada dalka waxaan la wada socotaa in adeegyada 2G 3G ISP internetka xawaarihiisu sareeyo iyo adeega e-dahab waa adeeg ay lacagtaada kugu soo diri karaan eheladaada gudo iyo dibad dunida oo dhan Somtel ka helaysid waxaan mar labaad idinka mahadnaqayaa dhammaan ka qaybgalayaashiisa xafladda furitaanka adeega internetka oo aanu muddooyinka u dambeeyay shirkadda waday adeega internetka ee dalkana ugu jaban uguna xawaalad uguna isbir sareeya oo hore waxaan u hirgelinay adeegyada 3G-ga oo aad loogu liibaanay maantana waxaan daahfuraynaa adeega 4G-ga saaka waxaynu joognaa xafladda internetka xawaarihiisu aadka u sareeya dunida ugu dambeeyay ee 4G Somtel la socotaan waxay ahayd shirkad markasta oo ay ku soo biirto adeegyada adeeg kamidi inay si siman u wada gaarsiiso gobolada dalka oo dhan waxay ahayd 3G way ahayd shalayto markaynu halkan ku qabanaynay oo ay reer Ceergabo aad soo dhaweeyeen isticmaaleen aadna ay ugu mahadsan yihiin isticmaalkiisa welina isticmaalaan maantana waxaanu idin sidnaawun 3G 4 generation ba ku siixiyay 4 generation saakan idin sidnaa waxa iyaguna halkaas hadalka isaga dambeeyay xubno isugu jira xildhibaano isu duwayaal madax dhaqameed iyo marti sharaf kale kuwaas oo isku mid ah u soo dhaweeyay adeega 4G Plus ee Somtel ka hirgelisay magaalada Ceergabo 4G marka la joogo wadana qaarkood sida Mali iyo Benin iyo wadana idil Afrika ayaa ilaa imika 3G isticmaalaya tobankan khayraad fara badan u leeyahay marka keenista 4G-ga la keenay waxaan rabaa inaad u isticmaashaan si aad ugu bandhigtaan dad badan oo caalamka idin danaynaya khayraadkiina si loo muujiyo Somtel aad baan ugu mahad celinayaa waan ku amaanayaa barnaamijkan beero oo geopanic wax la yiraahdo oo iminka aynu xoolaheena oo dhan ku sabalay garan karayaan maalmo dhaweyd ka faa'iido ka bartay bahalkan waxaan aad uga mahad celinaynaa adeegyada ayna soo gaarsiinayso Somtel oo hadda daafurkeedu yahay 4G Plus aad u soo dhaweynayaa Somtel oo inoo furtay 4G-ga aad baan ugu baahnay in badan aad ugu baahnay ku hadlay afka hay'adaha gobolka Snack jooga aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xawaaraha dheereynayna aad buu noo anfacayaa runtii aniga ku hadlaya afka jaamacadaha iyo waliba afka ardayda gobolka waa barnaamij runtii aan u arko inuu yahay faa'iido weyn ugu jirto gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceergabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Snack Axmed Cabdi Falay oo iyaguna sidaas si limada dhankooda soo dhaweeyay adeega 4G Plus Somtel waa run 99 inagoo gudcur ku jirnay ay leedkay noo bilaabeen mar labaadkiina waxay noo keeneen telefoonka aad iyo aad sidii Fuad sheegay waa wax jira aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa 100% maantana waxay noo wadaan 4G waxa weeye waxaan la mid noqonay goboladii kale ee ina ka dhawaa galbeed aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shirkadda Somtel iyo dhammaan Dahabshiil Group oo maanta halkan noogu soo bandhigay 4G-ga noogu soo bandhigay runtii waa aaladeen u baahnayn horumarka gobolka ayaan ka turjumaysaa waxaan leeyahay hal laga faa'iideysto aad iyo aad hal looga faa'iideysto Barkhad Maxamuud Geedi Bulsha TV magaalada Ceergabo